roobab aad u xooggan oo mahiigaan ah ayaa ka da'aya guud ahaan waddanka Kenya oo sababa dhibaatooyin badan oo isugu jira khasaarooyin naf iyo maalba leh, waxaana lagu soo warramayaa ilaa iyo hadda in ay dhimashadu marayso ilaa iyo 81 qof kuwa oo ku baxay daadadkan xoogga leh ee roobabku ay sababeen oo ka da'ayo magaalooyin kala duwan oo dalkaasi Kenya ku yaalo haba ugu badnaatay caasimadda Nairobi ee waddankaasi Kenya. Waxaana lagu soo warramayaa in roobabkan mahiigaanka ah oo si xawliya ku socda in ay ilaa iyo hadda ku barakaceen in ka badan 2700 oo qoys kuwa oo guryahooda ka barakacay kadib markii uu soo gaaray roobabkan mahiigaanka ah. Afhayeenka guud ee ciidamada booliska waddanka Kenya, Mujiri Nyaga, ayaa ku warramayo in ay roobabkani sababeen dhibaatooyin isugu jira barakac baahsan oo soo wajahay qoysas badan oo ku nool guud ahaan waddanka Kenya iyo caasimadda Nairobi ee dalkaasi. Waxa uuna intaa ku daray in ay daadadkani sababeen khasaare isugu jira naf iyo maal iyo burbur badan oo soo gaaray goobo badan oo ganacsiyo ah. Waxa uuna sheegay in dhimashadu ilaa iyo hadda ay sii cagacagaynayso 81 qofood halka uu barakucu ku dhow yahay ilaa iyo 3,000 oo qoys. Waxa uuna sheegay in magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi ay tahay goobta ugu darneyd, waxaana uu xaqiijiyay in ilaa iyo hadda Nairobi ay ku nafbaxeen ilaa iyo 37 qofood kuwa oo daadadku ay qaadeen dhimashana ay u sababeen. Waxa uuna intaa ku daray in goobaha beeraha iyo meelaha dalxiiskuba ay hadda isku bedeleen webiyo oo ay la ciirciirayaan biyaha xooga badan. Waxa uuna sheegay goobo badan oo ganacsi iyo guryo badan in ay waxyeelo ka soo gaartay. Waxa ayna hay'adaha ammaanka iyo kuwa booliska iyo kuwa gurmadka degdega ahba ugu baaqayaan dadweynaha ku nool magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda in ay digtooni iyo feejignaan dheeri ah sameeyaan. Si taalamid ah ayay booliska digniino culus u direen dadka ku nool xaafadaha isku raranka ah kuwa oo ay biyuhu ku fooraraan. Inkastoo ay boolisku sheegeen in ay sameeyeen goobo biyo xareena ah, haddana waxa ay sheegeen in roobka xooggiisu uu sii socon doono, taana ay sababi doonto in biyahaasi aysan celin biyo xireenada ay sameeyeen, taasoo ay ugu digeen dadka xaafadahaasi ku nool in ay si degdeg ah ay uga barakacaan ama ay uga baxaan. Roobabkan ayaa lagu soo warramayaa in ay sii socon doonaan ilaa iyo maalmaha Talaadada iyo Arbacada ee toddobaadkan, kaasoo lagu soo warramayo in uu kasii xoogaysan doono inta uu hadda yahay. Roobkan mahiigaanka ah ee ka da'ay dalka Kenya ayaa waxa uu sababay khasaarooyin aad u xooggan oo naf iyo maalba leh, waxaana uu xiray wadooyin badan oo dalkaasi ku yaalo, isaga oo sababay barakac baaxad weyn oo ka dhalatay xaafado badan oo isku raran ah kuwa oo ku yaalo magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo sidoo kale magaalooyin kale ee dalkaasi Kenya ka tirsan. Halka warka kiisa ugu doorkano oo idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.